socdaalkan uu taliyaha ciidanka xoogga dalka xildhibaano iyo wasiiro ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya ay ugu kuuragalayeen xaaladda deegaanka ka tirsan gobolka Boqol oo maalmihii la soo dhaafay ay ku dagaalamayeen ciidamada dowladda iyo kuwa ururka Al-Shabaab ay barqanimadii maanta kaga soo amabixeen garoonka aadan cadde ee magaalada Muqdisho. wafdiga taliyaha ciidanka xoogga dalka General Odawaal Yuusuf Raage xildhibaanada iyo mas'uuliyiinta kale ayaa markii ay soo gaareen garoonka degmada Ceel Barde ee gobolka Boqol waxaa halkaasi ku soo dhaweeyay saraakiisha ciidanka gobolka Boqol maamulka degmada iyo dadweyne fara badan. xildhibaanada iyo mas'uuliyiinta ayaa socdaal ku mari doona deegaanada xuduudda ee dagaalku ka dhacay si ay u soo qiimeeyaan xaaladda bulshada gobolka. Haadi Siraad Cumar gudoomiyaha degmada Ceel Barde ayaa sheegay in wafdigan uu hordhac u yahay qorshe weyn oo ka dhana ururka Al-Shabaab oo dowladdu dhawaan ay ka bilaabi doonto degmooyinka xuduudda ee gobolka Boqol. waxaa farxad weyn noo ah maanta inaan soo dhaweynay wafdi ballaaran oo nooga yimid dowladda federaalka oo isugu jira saraakiisha ciidamada u sarreysay xildhibaano heer federaal senataro oo u yimid inay u kurgalaan xaaladda nololeed iyo amni deegaanadan xuduudda ah oo runtii ay ka socdaan howlgallo ballaaran oo lagula dagaalamayo cadowga argagixisada ee naflacaariga ah oo isku day nacasnimo ku soo qaaday deegaankan xuduudda ah iskuna day inay gudaha u galaan dowladdan aan daris ka nahay dagaalkaasi iyo jawaabta adkeyd laga bixiyey iyo xaaladda nololeed iyo amniba iyagoo u kurgalaya ayayna soo gaadheen runtii waa maalin farxad noo ah haddii aan nahay dadkan deegaankan xuduudda iyo gaar ahaan degmada Ceel Barde in ayna soo booqdeen wafdigaas oo runtii hordhac u ah barnaamijka la dagaalanka argagixisada. xildhibaan Axmed Sheekh Maxamed Luxus ayaa sheegay inay bilaabi doonaan howlgal ka dhana ururka Al-Shabaab kaas oo ka qorshaha maanta ay ku yimaadeen degmada Ceel Barde ee gobolka Boqol socdaalna ay ku tagi doonaan deegaanada kale ee dadku ay ka barakaceen halkaas oo maalmihii la soo dhaafay ay ka dhacayeen dagaallo u dhexeeya ciidamada dowladda oo kaashanaya kuwa koonfur galbeed iyo ururka Al-Shabaab. degmada Ceel Barde wafdi ballaaran oo wasiiro xildhibaano labada aqal oo baarlamaanka federaalka ah aqalka sare iyo aqalka hooseba saraakiil sare uu hogaaminayo taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed madax badan ujeedkeenu wuxuu ahaa runtii in loo kurgalo dhacdooyinkii ayaamahan dhaweyd ka dhacay degmooyinka Aati iyo Yeed iyo Washaaqo oo runtii cadowga argagixisada Al-Shabaab ay falal dhibaato oo gaadma ka geysteen inkasta oo ay kala kulmeen 10 laba hilaawana geesiyaasha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo new booliska dowlad deegaanka Soomaalida oo runtii 10 u dhigay muhiimadda waxay tahay in cadowgaas isbahaystay oo noocyo kala gedisan leh oo aragti xun leh in howlgal ballaaran oo lagu ciribtirahayo sidii loo samayn lahaa la isaga kaashan lahaa bulsho ciidan run ahaantii waxa weeye hawshaan iyada ay ahayn u nimid ilaahay idimkii waxay noqonaysaa midkii lagu soo aftari lahaa Al-Shabaab run ahaantii muhiimadda shirkaygan jaraa'id waxaa weeye inaan u nimid si buuxda inaan la qaybsanno shacbiga annaga duruufaha colaadeed ee taagan iyo duruufaha amni ee taagan iyo duruufaha abaareed ee taagan intuba inaan la qaybsanno oo aan xaaladooda wax kastoo ay ku sugan yihiin la wadaagno kuna hogaaminno sidii ay ayagana isku kaalmayn lahaayeen kuwa dhibaataysan kuwii waxaysta uu wax u siin lahaa annaguna wixii daryeel ahoo ka dowlad ahaan loogu talagalay aan u gaarsiin lahayn isla markaana si meel wada jir ah looga soo horjeeso cadowga sidii la isaga celin lahaa ilaahay idamkiis waxa ugu weyn ee laga bilaabahayo oo hooyo u ah oo aabba u ah oo dowladda Soomaaliyeed in badan garab taagnayd dhiigoodana u huray dowladda Itoobiya oo runtii geesiyaal walaaladaanada ah oo Itoobiyaan ah oo Soomaali ah ay dadkan shacbigan iyagoo cadow ka ilaalinaya dhiigooda u hureen waxaan leenahay waanu idin garab taaganahay waana iska kaashan doonaa cadowga meel kasta oo uu jiro
dowladda Itoobiya dowladda Soomaaliya iyaga oo gacmaha isqabsanaya ayay si wada jir uga gali doonaan himiladaas waa himilada madaxweynaha Soomaaliya waa himilada ra'iisul wasaaraha Soomaaliya waa himilada gudoomiyaha baarlamaanka iyo dhammaan xubnaha golaha shacabka iyo aqalka saraba siyaasaddaas weeye midda laga hirgelinayo. Sada Cabdi Taaliil, Universal TV, Albert. socdaalkan uu taliyaha ciidanka xoogga dalka xildhibaano iyo wasiirro ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya ay ugu kuuragalayeen xaaladda deegaanka ka tirsan gobolka Boqol oo maalmihii la soo dhaafay ay ku dagaalamayeen ciidamada dowladda iyo kuwa ururka Al-Shabaab ay barqanimadii maanta kaga soo amabixeen garoonka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho. wafdiga taliyaha ciidanka xoogga dalka General Odawa Yuusuf Raage xildhibaanada iyo mas'uuliyiinta kale ayaa markii ay soo gaareen garoonka degmada Ceelbarde ee gobolka Boqol waxaa halkaasi ku soo dhaweeyay saraakiisha ciidanka gobolka Boqol maamulka degmada iyo dadweyne fara badan. xildhibaanada iyo mas'uuliyiinta ayaa socdaal ku mari doona deegaanada xuduudda ee dagaalku ka dhacay si ay u soo qiimeeyaan xaaladda bulshada gobolka. Haadi Siraad Cumar gudoomiyaha degmada Ceelbarde ayaa sheegay in wafdigan uu hordhac u yahay qorshe weyn oo ka dhana ururka Al-Shabaab oo dowladdu dhawaan ay ka bilaabi doonto degmooyinka xuduudda ee gobolka Boqol. waxaa farxad weyn oo ah maanta inaan soo dhaweynay wafdi ballaaran oo nooga yimid dowladda federaalka oo isugu jira saraakiisha ciidamada u sarreysay xildhibaano heer federaal senataro oo u yimid inay u kurgalaan xaaladda nololeed iyo amni deegaanadan xuduudda ah oo runtii ay ka socdaan howlgallo ballaaran oo lagula dagaalamayo cadowga argagixisada ee nafla caariga ah oo isku day nacasnimo ku soo qaaday deegaankan xuduudda ah iskuna day inay gudaha u galaan dowladdan aan daris ka nahay dagaalkaasi iyo jawaabtii adkayda laga bixiyey iyo xaaladda nololeed iyo amniba iyagoo u kurgalaya ayayna soo gaadheen. runtii waa maalin farxad noo ah haddii aan nahay dadkan deegaankan xuduudda iyo gaar ahaan degmada Ceelbarde in ayna soo booqdeen wafdigaas oo runtii hordhac u ah barnaamijka la dagaalanka argagixisada. xildhibaan Axmed Sheekh Maxamed Luxus ayaa sheegay inay bilaabi doonaan howlgal ka dhana ururka Al-Shabaab kaas oo ka qorshaha maanta ay ku yimaadeen degmada Ceelbarde ee gobolka Boqol socdaalna ay ku tagi doonaan deegaanada kale ee dadku ay ka barakaceen halkaas oo maalmihii la soo dhaafay ay ka dhacayeen dagaallo u dhexeeya ciidamada dowladda oo kaashanaya kuwa koonfur galbeed iyo ururka Al-Shabaab. degmada Ceelbarde wafdi ballaaran oo wasiirro xildhibaano labada aqal oo baarlamaanka federaalka ah aqalka sare iyo aqalka hooseba saraakiil sare uu hogaaminayo taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed madax badan ujeedkeenu wuxuu ahaa runtii in loo kurgalo dhacdooyinkii ayaamahan dhaweyd ka dhacay degmooyinka Aati iyo Yeed iyo Washaaqo oo runtii cadowga argagixisada Al-Shabaab ay falal dhibaato ah oo gaadmo ah ka geysteen inkasta oo ay kala kulmeen 10 laba hilaawana geesiyaasha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo new booliska dowlad deegaanka Soomaalida oo runtii 10 u dhigay. muhiimadda waxay tahay in cadawgaas isbahaystay oo noocyo kala gedisan leh oo aragti xun leh in howlgal ballaaran oo lagu ciribtirahayo sidii loo samayn lahaa laysaga kaashan lahaa bulsho ciidan run ahaantii waxa weeye hawshaan iyada ay ahayn u nimid ilaahay idimkii waxay noqonaysaa midkii lagu soo aftari lahaa Al-Shabaab. run ahaantii muhiimadda shirkaygan jaraa'id waxa weeye inaan u nimid si buuxda inaan la qaybsanno shacbiga annaga duruufaha colaadeed ee taagan iyo duruufaha amni ee taagan iyo duruufaha abaareed ee taagan intuba inaan la qaybsanno oo aan xaaladooda wax kastoo ay ku sugan yihiin la wadaagno kuna hogaaminno sidii ay ayagana isku kaalmayn lahaayeen kuwa dhibaataysan kuwii wax haysta uu wax u siin lahaa annaguna wixii daryeel ahoo ka dowlad ahaan loogu talagalay aan u gaarsiin lahayn isla markaana si meel wada jir ah looga soo horjeeso cadowga sidii la isaga celin lahaa ilaahay idamkiis waxa ugu weyn ee laga bilaabahayo
oo hooyo u ah oo aabba u ah oo dowladda Soomaaliyeed in badan garab taagnayd dhiigoodana u huray dowladda Itoobiya oo runtii geesiyaal walaaladaanada ah oo Itoobiyaan ah oo Soomaali ah ay dadkan shacbigan iyagoo cadow ka ilaalinaya dhiigooda u hureen waxaan leenahay waan garab taaganahay waan iska kaashan doonaa cadowga meel kasta oo uu jiro dowladda Itoobiya dowladda Soomaaliya iyaga oo gacmaha isqabsanaya ayay si wada jir uga gali doonaan himiladaas waa himilada madaxweynaha Soomaaliya waa himilada ra'iisul wasaaraha Soomaaliya waa himilada gudoomiyaha baarlamaanka iyo dhammaan xubnaha golaha shacabka iyo aqalka saraba siyaasaddaas weeye midda laga hirgelinayo Sada Cabdi Taaliil Universal TV